maanta waxaynu halkan iskugu nimid inaynu samayno oo baahi baa jirta in loo baahan yahay in la sameeyo habraaca dhismayaasha dugsiyada waxbarashada in habraac dhameystiran uu yeesho oo sheegaya dugsiga magaalada sida loo dhisayo maxay noqonayaan daaqadihiisu cabirkiisu intuu noqonayaa wax kasta oo galaya in la sii sheego si cid kasta oo inoo shaqeynaysa ay ugu dhaqanto habraaca dhismayaasha dugsiyada waxbarashada waxa ku jiray kuwii magaalada waxa ku jiray kuwii miyada kuwa magaalada waxa weeyaan laba qaybood bay noqon doonaan mid waxa weeyaan dhismayaasha caadiga ee dugsiyada caadiga midna waxa weeyaan baahi baa soo kordhay oo meelihii dadku ku badnaayeen dhulkuna yaraa dugsiyadu waxay u baahan yihiin dugsiyada bariga hore la dhisay in laga dhigo fooqiyo si isa saar si ay arday badan u qaadi karaan marka waxaas oo dhan waxaanu doonaynaa in loo sameeyo habraac dhameystiran oo hagi kara qof kasta oo inala shaqeynaya haday tahay injineeradeena iyo haday tahay injineerada qaran bixiyaasha iyo hay'adaha inala shaqeeyaba dhibka ugu badan ee wasaaradda ka haysta miyiga waxa weeyaan in ka badan 750 dugsi ayay dabayshu ka qaaday dugsiyada miyiga sanaag baa ugu badan 19 dugsi weeyaan taasi waxay sheegaysaa kow inay jirto standardski oo aan la gaadhin oo aan la waafaqin qodobka labaadna waxa weeyaan dugsiyada miyigu waxay ku yaalaan meel ay kaligood guri yihiin oo dhulku wada banaan yahay dabeetana dabayshu si fudud bay uga qaadaysaa hadaan marka horeba loo sii adkayn si aynu uga baxno caqabadahaasi ayaa waxa la isku raacay in la sameeyo habraaca dhismayaasha dugsiyada waxbarashada injineerka wasaaradda waxbarashada Suhuur Qaasim way ka soo shaqeynaysay waxa kale oo caawiyay oo halkan nala wada fadhiyo dhammaan injineerada bahwadaagta waxbarashada oo dhan halkan bay ku la fagurayaan inaga waxay noo keeni doonaan markay la faguraan ay soo dhameeyaan dhammaan dhismayaasha dugsiyada loo dhiso noocyada kala duwan BOQs-koodii qiimayaashoodii kaasaynu ku hawlgeli doonaa inaguna hadii ay tahay dugsiyo laga dhisayo miisaaniyadda dawladda iyo haday tahay laga dhisayo miisaaniyadda qaran bixiyaasha ujeedada shirku waa koobanta haduna hagihii iyo habraacii inuu sameeyno dhismayaasha dawladda loo dhisay gaar ahaan dugsiyada hada jeer dadku markay dacaydeen wax la yiraahdaa markuu roob iyo dabeyl yimaadaan guryaha dadku leeyahay xama yeelan laakiin markuu horeysaba dabaysha jiingadu waxay ka qaadaa dugsiga dawladdu leedahay hatta dugsiyada gaarka kama qaado marka taas halka canaanba ka soo yara baxaysa xirfad la'aan ma aha wax weey waa hagrasha jirtay noqonaysa markaasi taa looga baxo horta waxa la go'aamiyay in la sameeyo habraac inahaga kaasina hadda kadib kooda xisaabtamayna wixii markaa duufay yimaado waa laga dabatay karaya laakiin kalaasku intuu noqonaya cabirkiisa waxyaalaha basic ah weyn daaqada iskuulka loo sameeynaya xagee ka soo jeesanaysa dhinaca dabaysha cadceeda waa in habraac ku wada muuqsanaadaan dhismahan la dhisay classroomku ciidiisa iyo sawirkiisa seel soo qiyaasay iyo birta galaysa iyo dhagaxa galay seeska see loo sameeynaya haduu yahay dabaq la saarayo seebo noqonaya imisa bimba galay qolada farsamo yaqaanka injineeradii waxa la isugu yeedhay wax weyn aad aqoontiina uga faa'iideysan in halka wax cad ku qorno kaas marka hadhow cid kasto inoo timaada oo wax dhisaysa marka loo dhiibi doonaa waxaan doonaynaa deegaanka ardayga wax ku baranayo oo ubadka saadugtiin wax weeyaan waa hadiyada wax lagu tilmaamaa ugu qaalisan ilaahay binaadamka siiyay kuwii baynu sameynaa meel wax ku dhigtaan ilaa jeel ma dhisane marka waxaan u baahanay meel ardaygu dareemo deganaansho uu dareemo markaa nafis uu dareemo markaa farxad markuu wax dhiganayo laakiin hadduu diiqad galo hawadeenu ka xidhno cadceedu soo gasho ma garanaysaa waxyaalo kale soo galaan waa mushkilad bay noqonaysaa marka in goobta noocaas qurxino meel wax lagu baran karo noqoto arday tayo leh oo bari noqon doono dhakhtarkii macallinkii injineerkii qarankan lahaa iyo ma garanaysaa iyo askarigii qarankan ilaalin lahaa halkuu ka soo bixi lahaa waxaan u baahanay markaa inaanu ka dhigno meel habboon aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa si gaara injineerada hay'adaha bahwadaagta laha wasaaradda oo runtii waqtigoodii ku tabarucaya aqoontoodii ku tabarucaya wadaniyada la sheegaya runtii waa intaas weyn in qofku ku tabaruco markaa waqtigiisa iyo aqoontiisa waxaan doonayaa inaynu manualka markaanu sameyno oo dhaqan gala marka ay jeer way kala duwanta wixii la qoro
iyo dhaqangalka waxaynu qorinaana wax la fahmi karo wanaagsan noqdaan fulinteeduna fududahay hadhow in isku dabageli karayno taana departmentka planninga ayaa runtii xil saaran in de quality-ga la ilaaliyo dhismayaasha si guud anaguna ugu dabageli doonaa marka dhismayaashu noqdaan qaar la isku halayn karo tayo leh oo resource-kii la geliyey ay ka muuqato markaa meesha horta tayo xumadu ninka wax dhisaya tayo xumada muu lahayn dadkaa lahaa anigu wasaaradda dibadejinta ka shaqayn jiray iyadaa mashaariicda berigaa bixin jirtay wixii integration loo oran jiray magaranaysa markaa maxaa dhici jiray nin baa la siinayaa shaqada la soo siinayaa halkii buu geynayaa waar naga tag baa la leeyahay inankaygaa noo dhisi doone ina hebel baa dhisi doone waaye ina hebelkii maba yaqaano wax la dhiso waaye bal hadduu cid keena idinku ina hebelkii bay keenayaan wastaad yar buu kaxaysanayay dhoobiisa saarsaari dabeel baa sheegaysaaye saxasaxada yar roobka yaa ina qaada laga yaabay magaranaysa daaqadaha 80 qaar baa iskuulada qaar baa 80 ama kaba yarba magaranaysa waa daaqad iskuul kolka weerta 120 noqoto weeyaan magaranaysa kolka weerata magaranaysa laba daaqadood ma iyo meel furan oo iftiin ku bato kolka wax weyn laakiin wax laga yaabaa in xogaa tadawar ay ku soo magaranay cid walba waxay doonaysaa wax yar wanaagsan loo sameeyo oo la qurxiyo kolka quruxduna de inaga way naga timaada xagga dhisayinka wayna meel wanaagsan oo dhignaa standard aynu sameynaa standard caalami oo yeesha kolka wixii uu soconaya uu inay raagaya muddo inuu sanad laga yaaba wax laga yaabaa gurigii Ingiriisku dhisay 100 sanadood ka hor iyo keenu sanad ka hor kaasi inuu ka adeeg yahay laga yaabaa kaasi inuu ka adeeg yahay de wax weyn de hadda wastaadadii dhisay Soomaaliland bay ahaayeen ee gaalku uu joogo ma garanaysaa foreman buu ka meesha kolka wax weyn inagu wixii ka foreman ka engineera ka wastaada waynu wixii nahnu hagaajinaa tayadii hablaha iyo raguna waa isku nasiibun ma kala nasiib badna mana kala maskax badna mar anu waxa wanahay saabli ka maskax badan yihiin kolka kullayba ay wasaaradda iyo damaantiinba horta dadka kula taliya farsamada gacanta inay bartaan kolkay secondary ka baxaan bal farsamada gacanta kula taliya si shaqo la'aantu u yaraato wax soo saarkuna u bato shirkuna waa salaamatiin shirkuna waa inoo xidhay. Assalaamu calaykum warahmatullaah.